السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال marka insha Allah ta'ala maanta waxa laga hadli doonaa dad badan ayaa ku weeraray electoral college muxuu yahay marka insha Allah ta'ala maanta waxaan si fiican u qeexi doonaa insha Allah waa maxay United States Electoral College qaabka loo doorto madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxay aad ugu duwan tahay sida ay adduunyada kale u doorato madaxweynahooda ama ra'iisul wasaarahooda caadi ahaan adduunka waxaa ku guuleysta kursiga madaxweynaha musharaxa ugu codka badan dalkaas haddaba Mareykanku ma aha sidaas madaxweynaha dalka Mareykanka waxaa doorto Electoral College waxaana mararka qaarkood dhaca inuu madaxweyne noqdo qof aan helin codadka ugu badan dalkaas sidii dhacday 4 sano ka hor markii uu Donald Trump helay codadka Electoral College halka ay Hillary Clinton heshay codadkii shacab weynaha Mareykanka dad badan ayaa isoo weydiiyay waxa ay yihiin Electoral College kani bal aan isku dayo inaan sharax kooban ka bixiyo sida ay u dhacdo doorashada Mareykanku dalka Mareykanka ayaa wuxuu leeyahay 538 electors ama codeeye kuwaas oo doorta madaxweynaha Mareykanka loona yaqaan Electoral College shacabkuna waxay doortaan Electoral College kaas xisaabta tirada 538 Electoral College waxay ku timid sidaan tirada Electoral College ee uu gobol ama state kasta leeyahay waa tirada Congress-ka aqalka hoose iyo tirada senators ama gobol kasta laba senator ayuu leeyahay gobol kasta tusaale gobolka California ee ugu dadka badan wuxuu leeyahay 55 Electoral College waxayna tiradaasna ku timid 53 Congress iyo 2 senator sida ayuu gobolka California ku helay 55 Electoral College okay haddaba 538 electoral votes waxay ku timid sidaan 435 oo ah tirada Congress-ka oo lagu daray 100 senator ama 50 gobol mid kasta wuxuu leeyahay 2 senator 435 Congress lagu daray 100 senator waxay noqonaysaa 535 Electors College tiradaas ayaa lagu darayaa caasimadda Mareykanka Washington DC oo leh 3 Electoral College caasimadda malaha Congress iyo senator toona laakiin waxaa aqalka Congress-ka u fadhiya delegate ama ergo non-voting members of United States House of Representatives haddaba xisaabtu waxay noqonaysaa sidaan 435 Congress lagu daray 100 senator lagu daray 3 Washington DC marka waxay noqonaysaa 538 Electoral College haddaba musharaxa gaadha 270 electoral votes ayaa noqonaya madaxweynaha Mareykanka tan kale ee xusidda mudani waa 48 gobol ama 48 state oo ka mid ah 50kan states musharaxa hela codadka ugu badan gobolkaas ayaa wada qaata tirada Electoral College ee gobolkaasi leeyahay winner take all Electoral Colleges marka laga reebo gobolada Nebraska wuxuu leeyahay 5 iyo Maine wuxuu leeyahay 4 musharax guuleysta gobolkaasi ayaa qaato meelaha gobolka Nebraska iyo Maine qofkii ku guuleysta gobolkaas wuxuu qaataa 3 electoral votes gobolka Nebraska 3 wuxuu leeyahay 2 electoral votes gobolka Maine
congressional districts, 3 in Nebraska, 2 in Maine. labada soo hadhana ku guuleysan karo musharaxa kale second congressional district. gobolada Mareykanku siday u kala dad badan yihiin ayay u kala badan yihiin electors votes ay leeyihiin. 4 sanaba hal mar ayay codeeyaan electoral college-ku, waana bisha December ee ka dambeysa marka ay dhacdo doorashada Mareykanku. bisha January ayaa la caleemo saaraa madaxweynihii la doortay. sidaa ayuu hadda Joe Biden ku noqonayaa madaxweynaha Mareykanka ee la doortay electoral president, waayo wuxuu haystaa 270 ama ka badan iyadoo dhowaan la dhammaystiri doono tirada codadka. waayo hadda markii ugu dambeysay ee shalay subaxi Donald Trump Joe Biden wuxuu lahaa 264, marka gobollo hadda uu hadda herin asaa weli ku haysta. walaalayaal aad baa u mahadsantihiin. sidaa ayaa la dhahaa electoral college-ku, sidaas ayay Mareykankana doorashada